السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خيرت ku xiran channelkeena Axmed Daraquni ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muslimiintu waxay soo mareen dhib badan waxayna bilaabatay markii uu dhintay Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo Abu Bakr noqday khaliifkii muslimiinta. Maanta waxaynu kala doonaan dhacdooyinkii ama taariikhiga la ilmaamay qaybtii saddexaad. madaxweyne ama khaliif la dilo muslimiinta dhexdooda lagama aqoon ilaa laga yimid dilkii Cumar oo uu dilay nin majuusi ah ama dabcaabud. waxaana sidoo kale ku xigay dilkii khaliifka muslimiinta Uthman ibn Affan oo ay dileen niman uu soo abaabulay Abdullah ibn Saba oo ahaa Yahuudi ku gambanayay magaca Islaamka. dilkii Uthman waxaa ka dhashay musiibo daran oo sababtay inay saxaabadii ay isdagaalaan. qisadu waa dheer tahay meesha aan socdaan ama halkan balse waa aan soo dulmaray. haddaba markii ay isku qabsadeen Cali iyo Muawiya dilkii Uthman waxa ka dhaxkay dagaal culus oo ay muslimiin badan ku dhinteen. musiibadaas intii loo guda jiray waxa soo ifbaxay kooxdii Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka hadlay ee uu yiri diinta waxay ku bixi doonaan sida ay falaarta uga baxdo qaansada koosoo lagu magacaabi jiray khawaarij. waxay ka soo horjeesteen Cali iyo Muawiya waxayna ku dhaheen waa badin ee shahaadada qaata mar labaad. waxay aaminsanayeen in muslimiinta ay gaaloobeen ayna u baahan yihiin inay shahaadada qaataan mar labaad. arrintii lagu maraacay waxayna bilaabeen inay qorsheeyaan inay ka takhalusaan Cali iyo Muawiya. sidoo kale waxay aaminsanayeen inuusan Camr ibn Caas uusan ka fogeyn meesha. waxay qorsheeyeen inay 3 qof u diraan Cali, Muawiya iyo Camr ibn Caas. waxayna qorsheeyeen inay dilaan saddexdoodaba hal waqti iyo hal maalin, gaar ahaan salaada subax kadib. Cali waxa uu joogay Kufa oo hadda ka mid ah Ciraaq. Camr ibn Caas waxa uu ku noolaa Masar, Muawiya Shaam. Burq ibn Abdullah at-Tamimi waxa uu aaday Shaam si uu u dilo Muawiya. salaadii subax kadib 17 bishii Ramadaan sanadii 4aad ee Hijriyada, Muawiya waxa uu tujiyay salaadii fajr. salaadii kadib Burq ibn Abdullah at-Tamimi waxa uu bilaabay inuu soo weeraro Muawiya, balse waxa arkay Muawiya waxa uu isku dayay inuu ka fogaado seefta, balse waxa ay ka sartay dhabarka. seefta uu watay Burq ibn Abdullah at-Tamimi ayaa ahayd seef sumaysnayd. saas darteed markii dhakhtarkii loo geeyay Muawiya waxa loo sheegay in laba daawo loo hayo oo kala ah in dab loo isticmaalo ama daawo kale oo cabayo balse wax dambe dhali doonin. Muawiya waxa uu doorbiday daawadii la cabayay waa uu badbaaday balse wax dambe ma uusan dhalin. haddii aan gudubno Camr ibn Caas, ninkii loo dilay inuu diray Camr ayaa ku tukanayay salaadii fajr Camr kadaashi. salaadii kadib waxa uu bilaabay inuu ka hor kaga imaado Camr si uu u dilo, waa uu dilay. waxa uu la fajacay markii uu ogaaday inuu dilay qof kale oo Camr xanuunsanaa habeenkaas. hadda waxaan u gudubnay Cabdiraxmaan ibn Muljim oo tagay Kufa si uu u dilo Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Cali waxa uu yimaaday masjidkii waxaana bilaabay inuu dadkii salaada u yeero. kadib waxa soo weeraray Cabdiraxmaan ibn Muljim waxa uuna ku dhuftay seeftii isagoo oo leh xukunka Allah ayaa iska leh, adii asxaabtaada ma lihidiin. waxaana kaga dhuftay madaxa, dhaawac weyn waa uu soo gaaray Cali ibn Abi Talib. sidoo kale seeftu waa ay sumaysnayd balse Cali isla markii ma uusan dhiman. Cali waxa uu ku dhawaaqay ninkayo uusan baxsan waana la soo qabtay. Cali ayaa dhahay haddii aan dhinto u dila sidee uu ii dilay, haddii aan dhimanna aniga liga warsugo. waxa uu la dardaarmay ilmihiisii iyo asxaabtiisii waxa uuna yiri ilmaan Cabdul Muttalib haddaadinina dhiig idinkoo dhahaya amirkii mu'miniinta la dilay. Cali waxa uu ogaa wixii dhacay Uthman ibn Affan dilkiisii kadib yaana la dilin cidaan ahayn kii dilay. Cali waxa uu dardaarmay ilaa uu ka dhintay waxaana dhaqay Xasan, Xuseen iyo Jacfar ad-Dayyar. waxaana sidoo kale ku tukaday janaasadii Xasan ibn Cali ibn Abi Talib. Cali waxa uu noolaa Jimco iyo Sabti waxaana dhintay habeenkii Axad. waxaa lagu doogay Kufa waxaana dhintay isagoo jira 63 sano. Cali waxa uu xilka hayay 4 sano iyo 9 bilood. Allaha ka raali noqdo dhammaan asxaabtii iyo inta wadadooda raacday. waxaan filayaa inaan kaga faa'iideeyay mawduucani maantay. inta ku kulmi doono mawduucan lamida waxaa idinkaga tagay. salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.